بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل والبوا joogtaan si walba aad inoo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Marti Sharaf oo aad hadahan oo kale ka daawataan TV-ga Jubaland. Todobaadkan barnaamijka waxa uu ka imaanayaa xarunta labaad oo TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Dabcan barnaamijka Marti Sharaf aan ku soo qaadanaa mowduucyo kala duwan iyo sidoo kale waraysiyo kala duwan oo aan isleenahay bulshada markaas idin daawanaysa waxtar mug leh oo haboon ay u leeyihiin. waxaan todobaadkan barnaamijka marti uga qayb galaya xildhibaan Maxamed Cali Cumar oo ku magac dheer Cananuug oo kamid ah xubnaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya. waxaan barnaamijka ku eegi doonaa waayihiisa kala duwanaa ee xagga siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha haatan golaha shacabka laga filayo oo hanka iyo himilada shacabka Soomaaliyeed. mudan xildhibaan marka hore ku soo dhaweynaya barnaamijka Marti Sharaf. amaasanta iminka xubnaha cusub ee golaha shacabka ku jirta oo hab ka duwan dabcan oo Soomaaliya ku cusub runtii ay aheedo in deegaanadoodii ay ku laabtaan oo doorasho ay soo galaan bal markii doorashadan aragtay oo aad gashay oo ku soo guuleystay oo xubin golaha shacabka mid noqotay maxaa dareentay bal adiga ka xilwaan ahaan hadda bismillaah horta doorashadii anagu aan soo galnay oo 2008 dawladii baarlamaankii 8aad ee baarlamaankan firqiga weyn oo u dhaxeeya wuxuu yahay baarlamaankaas wuxuu ahaa heshiis laba dawladii TFG ay aqoonsanaayeen beesha caalamka iyo macaaradkii dagaalamayay ee lagu heshiisiyay Djibouti heshiiskaas ayuu ku yimid baarlamaanka 8aad runtii waxaan isleeyahay meel fiican ay dalka soo gaarsiiyeen baarlamaankaas marxalad adag iyo xaalad adagna waa lagu soo shaqeeyay marka wax kaaga taabto gudiyadii baarlamaanka aniga waxaan kamid ahaa gudiga kheyraadka ayaan ku jiray gudoomiye kama ahayn waxaan ka ahaa xibinaan ahaa oo joogta xibin joogtaan ahaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo magaalada Muqdisho doorasho lagu qabto ayay suura gelisay ayadoo nafteeda waxay ahayd fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed kalsooni badan iyo dhiirigelin badan ayay u ahayd baarlamaankii 9aad iyo dawladii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hadda xilka baneeyay runtii waxa baarlamaanka 8aad ku wareejiyay xilka ayaga inta soo gaarsay in doorasho Muqdisho lagu qabto waxyaabaha markii waa ku kala duwan taan dhihi kara baarlamaankii 9aad wuxuu ahaa odaya soo xulay oday dhaqameed soo xulayay runtii in badan oo kamid ah xildhibaanada dad badan oo Soomaali oo soo laaban lahaa oo fursad heli lahaa waxay fursad u waayeen hal qof hadii go'aanka uu gaaraya dad badan ayaa weynaya jaaniska dad badan ayaa weynaya marka waxaan isleeyahay baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 10aad firqi weyn ayaa u dhaxeeya firqi weyn oo u dhaxeeya la taaban kara waxa waaye 51 qof wax soo dooratay isteediya la hoostagay oo waxa la yidhi kasaba deegaankii uu ka yimid ay doorashada ka dhacaysaa runtii arrinkaas waxay ahayd maalin farxadeed aniga kula hadlaaya ka Cananuuga waxaan joogay Itaaliya markaan dib ugu laabto baarlamaankii 9aad xilligiisii aniga waa waayay kursiga nin kale walaalka ayaa qaatay kadib markaan waa business aan iska galay kadib waxaan aaday wadamada Yurub taan aaday anoo Itaaliya jooga markii la ii sheegay wixii hore wax lagu soo dooranay 2012 sidii baarlamaankii 9aad uu ku yimid ka bedelana dhacayso 51 qof wax soo dooranaysa waa soo tahriibay waxaan soo goostay go home aan ka soo qaatay Yurub anigoo diyaar u ah inaan tartamo dabcan kaligay ma ahayn dadka tartamaya laakiin waxaan ku dhiiraday go'aanka hadii uusan hal oday lahayn oo 51 qof ay wax dooranayso waxaan isiri Allah ilaahay mid xalaal maanta ay dhacday ka qayb gal sidaas aan Yurub ugu soo tagay kadibna state-kii aan ka soo jeeday Jubaland aan ku laabtay halkaas aan tartan ka soo galay waxaan islaayahay doorasho fiican oo xalaal ah ayay ahayd qof kasta nasiibkiisa 51 qof oo codka uu yahay qarsoodi qof kasta iyo nasiibkiisa uu helo dad badan inay wax sheegan waa laga yaabaa oo yiraahdaan isteediyada meelaha qaar corruption ka dhacay mataqaana dad la dulmiyay laakiin ani uma arka dulmi waxay ahayd odaygii kaligiisu wax soo qoraya go'aanka qaadanay ee 51 qof cod dheeri qofka hela waxaan isleeyahay cadaalad meesha ugu fiicneed
waaya waa mahadsantahay runtii waayo badan baa runtii waxaan xasuusisay dib baan u laabanay dabcan xubnaha hadda golaha shacabka iyo runtii aqalka sare marka hadda la eego hawl adag baa sugaysa isla xisaabtan baa yaala nin kasta dee deegaan buu kasoo baxay oo qabaa'ilkiisii dabcan waa ognahay xaaladda dalka ka jirta qof kasta waxaa laga rabaa ballanqaad buu kusoo baxay oo ah in deegaankiisii waxbarashada caafimaadka waxyaaba badan inuu ka saaciidayo adig ka xildhibaan ahaan dadka deegaankaaga waxyaabaa u ballan qaaday oo kuu qorshaysan inaad ku laabato si aad beri mar kale aa xil qabato ma jirta bismillah anigoo baarlamaankan kusoo laabtay dabcan haddee siyaasaddu ayadoo dhanaaba ah ballanqaad annagu dadaan matelnaa deegaanaan matelnaa deegaanku stateka jubbaland ayaan matelnaa qabaa'ilada kala degan oo waxay doonaan ha ahaadaan waxaan rajaynaynaa 2020 qof iyo cod inuu dalka ka dhaca sidaasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa arrinkaas ilaahay inuu suuro geliyo aniga waxyaabaha diiradda aan saarayo oon isleeyahay allah ilaah wax baad ka qaban kartaa jubbaland sidaad la socota waxay ku tiirsan tahay dad xoolo dhaqataa waa dad xoolo dhaqataa waa dad beeraley ah waa dad bad weyn oo kalluumaysato oo xeebteeda ilaa iyo Kenya ay dhacaysa waa dal leh anigoona kala qaadqaadayn dalka Soomaaliyeed oo dhan ayaan mas'uul ka nahay laakiin waxyaabaha ii qorshaysan oo focuska aan saarayo waxay tahay aniga waxaan ahay gudoomiyaha guddiga beeraha horumarinta reer miyiga xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga kheyraadka ee golaha shacabka dabcan 3 wasaaradood ayaan la xisaabtamaynaa 3 wasaaradood oo hadda aan kuu sheegay 3 wasaaradood waxay qusaysaa Soomaaliya oo dhan waa qusaysaa qaas ahaan Jubbaland ay qusaysaa xoolihii iyo dadkii reer miyiga ah xoolo dhaqatadii beerihii iyo baddi inta way soo galaysaa marka waxaan isleenahay wasaaradahaas oo dawladda dhexe federaalka waxaan rajaynaynaa kaalinta annagu aan ku leenahay ama kaalintu mataqaanaa ishaag ummadda Soomaaliyeed ay ku leedahay meel ka soo joogaanba inaan ka keeno kula xisaabtano ma doonayna mataqaanaa colaad iyo khilaaf annaga iyo wasaaradaha naga dhaxay inaan abuurno laakiin waxaan rabnaa isfaham inaan sameeyno heshiisyada ay soo galeen ayna soo hordhigaan waxyaabaha mataqaanaa ishaag loo baahan yahay baarlamaanka in la mariyo oo ummadan oo ay masaalixiidan ay ugu jirto kale inaan ka wada shaqeyno inaan isfahano oo wada shaqeyno dadkana loo shaqeeyo marka waxyaabaha focuska ii saaran waxa waaye reemigii oo kale in la hormariyo kalluunkii oo sidii dalka iska daadsan oo faa'iidadiisu aad ay nooga yartahay dadkii in shaqo abuur inay ka helaan beerihi waxa laga yaabaa beeraha waa 2 nooc kuwana xilliga roobka uu daa ayaa la abuuraa oo xilligaas wixii manaafacaad laga helaa kuwana waa webiga ku yaala oo mataqaanaa isha kanaaladii mataqaanaa ay waraabiyaan waxa laga yaabaa kanaaladii inay iska duugmeen oo cid ka shaqeysa ay si jirin aan laga faa'iideysanin waxa soo dhan marka waxaan rajaynaynaa beero waxa jira dawladda ay lahayd iska duuroobay inay jiraan waxa laga yaabaa beero dawladda ay leedahay oo dad si gaar ah iskaga haystaa inay jiraan waxa soo dhan waxaan nagala rabaa in anagu intaan dabagalna soo ogaano aan kula soo laabana wasaaradii ay qusaysay hadday xoolo tahay iyo hadday beer tahay iyo hadday kalluun tahay intaba marka waxyaabaha aniga ii qorshaysana waxay tahay baarlamaanka markuu fasaxa galaan waxaan rabaa inaan joogo shaqeeyo xilli waqti daruuri ah qofka lagama maarmaan ay noqoto in wadamadan dibadda la aado dariska ah oo hadday sabab caafimaad iyo waxyaabahaas inay dhacaan maahane haddii muqdisho aan ku cajiso waxa ay qorshaysan inaan Kismaayo ku soo nasto aanan dalka ka bixin waayahay waxaan rabaa arrintan xildhibaanadana ku laaban dabcan doorashadan magac baa la siiyo ah doorasho dadban dadku waxay aad u eegayeen bal wax ka soo bixi doono dadku waa ogtahay meeshii ugu dambeysay joogeen hankooda waa ogeed niyadooda waa ogeed macnaha qorshaha wuxuu 2016 doorasho qof iyo cod ay dhacdo waxba isbedelay marka doorashadan bay eegayeen ishii ku hayeen bal maadaama golo shacab iyo aqal sare markii ugu horeysay la sameeyay bal waxa ay keeni doonaan maadaama ninkii maanta dadka aad doorateen oo farmaajo madaxweynaha wadanka ah oo aan ognahay shacbiyada iyo taageerada shacabka bal ma la isdhihi karaa xildhibaanadii dadbana ay hab dadban ku yimid bal riyadii shacabku way rumayeen bismillah
annaga waxaan rajaynaynaa horta dowladda waktiga ay jirto waa waqti iska kooban oo 4 bilood ah marka waxaan rajaynaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka hay-adaha institutionka oo dhan ayagoo wada shaqaynaya dalka marxaladii dadbaneedu uu ku jiro inay ayaga ka saaraan waad og tahay dalka dhibaato badanaa ka jirta niman nabaddiid ah ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa hortaagan abaaraa ka jira dowladda mataqaana ishaag waa dowlad yaroo curdan oo hadda dhalatay marka waxaan rajaynaynaa wixii la ballan qaaday oo qof iyo cod ahaa inuu dhaca haddii uusan dhicin oo la gaari waaya soomaalida waxaa lasoo maray kasoo bilaaw dowladdii cabdiqaasin oo 2001 lagu soo dhisay carta ilaa hadba marxaladay soo maraysay marxalad maanta ay ka fiicneed midaanu dadban oo 51 xildhibaanada ay kusoo doorteen mid ay ka fiicneed oo soo martay ma jirto marka waxaan rajaynaynaa riyadii ahayd qof iyo cod inuu dhaca horta ilaahay baa waxaan ka rajaynaynaa abaaraha iyo colaada iyo dhibaatada ummaddan ku habsatay ilaahay inuu ka dulqaado dadkan qalbiga inay isu furaan gacmaha isqabsadaan ayaga dowladdu waa shacabka ma aha hay-ado yaroo meel joogo shaqaynayo institution oo shaqo loo dirsaday ma aha shacabka waa shacabkaa laga rabaa dowladdooda inay garab istaagaan hadday mataqaanaa kuwa nabaddiid ahaan lahayd iyo abaar hadday ahaan lahayd intaba in gacmaha la isqabsado dowladdoodana ay la shaqeeyaan ayaa waxaa lagu gaari karaa qof iyo codkiisa taasaa lagu gaari karaa marka waxaan rajaynayaa shacabka waxay rajaynayeen dowladda maanta dhalatay waa dowlad ay shacabka rajaynaya waad ogeed habeenkii farmaajo la doortay shacabka cid abaabushay ayadoon jirin ay soo yaaceen oo meel la kala istaagaa la waayo mataqaana ishaag meelaan weli hataa banaanbax aan ka dhicin suuqa xoolaha iyo meelo la dhihi jiray ee nimankaa ku dhuunta ayaa banaanbax uu ka dhacay oo sawirkii farmaajo madaxweynaha cid kastaba iyadoo gacanta ay ku wadato kadib khayraa la keenay ra-iisul wasaaraha hadda shaqaynaya khayra shacabka u riyaaqeen batay shacabka banaanbaxay sameeyeen ay yidhahdeen baarlamaanka hala ansixiyay ninkaas si fiicana loo ansixiyey waa ninkii ugu cod ka badnaa ra-iisul wasaare oon loo kala harino sida loo ansixiyey mataqaana qof kastoo soomaali ay ogtaa xukuumaddii lasoo dhisay sidoo kale ahayd marka waxaan isleeyahay dowladdan waaba dowladdii uu shacabka u baahnaa marka ayaga shacabka waxaa laga rabaa qof iyo cod siduu ku dhici lahaa in laga wada shaqeeyo dowladda ay kala shaqeeyaan dowladda kaliya lagu eegin waa mahadsan tahay daawadeel weli waxaad daawanaysaan barnaamijka marti sharaf waxaa idinka ka imaanaya Jubbaland TV xaruntiisa labaad ee magaalada Muqdisho todobaadkan waxaa barnaamijka marti ugu ah xildhibaan Maxamed Cali Cumar oo ku magac dheer Caanuug oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya xildhibaan haddaan kusoo laabto dabcan waan ognahay wadanka xaalad adag baa ka jira oo waxaa ugu wacan hadda oo number 1 ah waa abaaraha markii hore xagga amniga runtii aad loo hadalhayay laakiin dhibaato kala timid oo abaaraha dabcan baarlamaanka fasax buu gali rabaa marar badan waxaa laga dhawaajiyay in xildhibaanadu ay ku laabanayaan deegaanadii laga soo doortay shacabkoodii ay ula qaybsadaan xanuunka jira bal arrimahaas ka war waa mahadsan tahay baarlamaanka fasax u galayaa hadduu ilaahay yidhaha siduu noo sheegay guddoonka 26 abriil oo ku beegan taariikh 26 arbacada guddiyo joogtaa jira oo shaqeynayo 14 ka kooban baarlamaanka markuu fasax gala 14kaas guddi ayaa waxaa laga rabaa deegaanadii ay ka soo jeedeen guddi kastaba xaaladiisa inuu soo qiimeeyo waxa shaqeynaya ee baarlamaanka 4 sano uu ku shaqeynayana waxaa iska leh 14 guddiya iska leh iyo guddoonka inay wada shaqeeyaan marka arrinka ayada ah waa lagama maarmaan baarlamaanka hadduu fasax gala guddoonada guddiyada inay aadaan deegaanadii laga soo doortay si ay usoo qiimeeyaan xaaladda nololeed ee deegaanadaas ka jirta kadibna baarlamaanka kulamadiisa markuu furmo ayaga ayaa keenaya waxa ay kusoo arkeen deegaanadaas wixii u baahan caawin abaaraha ka jira shacabku waxay tabanayaan statekaas mataqaana waxa in laga kaalmeeyo u baahan yahay waxaasoo dhan ayagaa laga rabaa annaga marka ka guddi ahaan waxaa noo qorshaysan baarlamaanka haddii uu fasax gala insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan ku laabto Jubbaland aan soo qiimeyno guddigeena marka arrinkaasu marka waa arrin saxiix ah sidaas ayuuna u dhacayaa insha allahu tacaala dabcan saan la socono dhawaanahan golaha shacabku waxa ay dooranayeen saa ka dhawaajisa waa guddoomiyaal
oo runtii oo muhiim u ah howlaha habsamida golaha shacabka iyo marka saddejiin nidaamyada dabcan ragay soo baxa ku jirta bal ka warsay kugu soo gashay runtii baarlamaanka 14 guddiya loo qaybiyay golaha shacabka 275 xubnood aniga guddigaygu waa guddiga aan kuu sheegay oo mataqaanaa xanaanada xoolaha iyo beeraha horumarinta reemiga iyo kalluumaysiga tartana loo galayay waxaa loo dooranayay sida guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka sida loo doortay madaxweynaha ayaa loo dooranayay codka wuxuu ahaa qarsoodi u ahaa marka qofkii hela cod dheeri hal dheeri lagu qaadanaya marka anigu tartanaan galay anigoo ilaahayna tala saaranaya mas-uuliyaddanu ay aada u adag tahay tartanaan galay tartankini waa ku guuleystay okay guddiga ay sheegtay marka hadda adaa guddoomiye guddiga meeqa xubnood ka kooban yahay guddigaas wuxuu ka kooban yahay 14 xubnood 17 waaye 3 wasiiro ka ah 14 waa shaqeynayaan guddiga aad guddoomiye u tahay ha 14 ha way dabcan say sheegtay dhowr wasaaradu baa ku hoos imaanayo dabcan ay muhiim tahay inaad wada shaqeysaan isla socotaan isla beed galaysaan oo si howlaha ay wadajir u noqdaan hadda markii ugu horeysay wasaaradda lagu soo daray oo ku cusub golaha wasiirada wasaaraddan maareynta arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka ma islada wasaaraddan marka ay eegto abaarahan soo laalaabtay xilli loo baahnaa bay tiri runtii hadda waxaan ku jirnaa marxalad adag ilaahay baan horta waxaan ka rajaynaynaa abaarahaas ilaahay inuu naga dulqaado laakiin mar kasta waa loo baahan yahay wasaarad u taagan dhibta imaanaysa in lasii qorsheeyo sababtoo wuxuu markaas markay dhacaan kaliya haddii laga hadlo waxay noqonaysaa waxba kama qaban karaysid laakiin haddii loo sii diyaar garooba hadda tusaale ahaan waxaan kuu sheegayaa webiyada waxaa jira beeralayda xilli ay dhibaato u geystaan oo webiga uu fatahaya kanaaladii beeralayda ay halaabayaan waa in wasaaradda mataqaanaa shaqada ku leh arrinkaa waa wasaaradda beeraha dabcan wasaaraddaas waa inay kasii baaraan degtaa guddigana waa inay u sheegaan oo yidhaahdaan waxaa laga yaabaa fatahaad inay dhacdo waxaa loo baahan yahay wixii looga hortegi lahaa inaan kasii wada shaqeyno marka wasaaradda hadda kusoo ziyaaday oo qaabilsan abaaraha iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta xilli loo baahnay inay imaadaan anigu aaminsanahay ciddii soo magacaawdayna aysan tala siigin waxaan u baahannahay wuxuu intaysa dhicin ka hor in laga hortaga laga sii tababushaysto war haddii abaar ay dhacdo maxaan uga hortagnaa fatahaad hadday dhacdo maxaan uga hortagnaa marka dabcan guddigay leedahay guddigaasaan rajaynayaa inaad intaad halkan ku casuuntaan aada waraysi aada la yeelan doontaan laakiin aniga waxaan ku gaabsanayaa xilli loo baahnay inay timid wasaaraddaas arrin kale aan ku weydiinayo oo xubnihiinaan qusayso baarlamaanka oo indhawaanahan waxaa idiin horyeelay mooshin laga keenay saldhigga berbera dabcan si dadku ay idin eegayeen oo jawaab idinka sugayeen baa haddana waxaa dadkii loo sheegay in xukuumaddii lagu wareejiyo si war cad oo faahfaahsan ay usoo gudbiso golaha shacabka bal arrimahaasi maxaa nooga sheegi kartaa wuxuu markii baarlamaanka la keenayo waxaa la rabaa wax sharci ah inay noqdaan shacabku waxay ku qanci karaan inay noqdaan dalka wuxuu leeyahay xukuumadda ayaa laga rabaa warkaasoo faahfaahsan saldhigga berbere iyo waxa laga damacsan yahay waxa la isla wareegaya oo dadka loo sheegay shacabka lagu marin habaabinaya golaha wasiirada ayaa laga rabaa inay soo caddeeyaan wixii oo cad oo faahfaahsan golaha baarlamaanka la keena kadib laga dooda wixii sharci ah ay leedahay markaas tilaabada ku habboon in laga qaado marka golaha wasiirada ay ku maqanta ayagaan ka sugaynaa warbixin faahfaahsan marka golaha waxaa ka sugaysaan warbixin faahfaahsan oo meel u dhacs meel loo raacin meel loo raacin ay leedahay waxaana inay been yihiin inay run yihiin inay soo caddeeyaan ayaga hadday dhab tahay arrinkaasu kadib mataqaanaa go-aanada institutionka baarlamaanka waxa ugu aadan dastuuriyan ayaa looga hadlayaa taasaa looga doodaa insha allahu tacaala laakiin golaha wasiirada ayaan ka sugaynaa iyadoo faahfaahsan inay keenaan golaha way waa mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqayn runtii sida quruxda badan aa usoo koobtay waxaan rabaa guddigaanan hadda madaxda u tahay dabcan hawl baa jirto si gaara idin taabanayso ah xagga wax soo saarka dabcan caqabada weyn baa ka jirta ragga wax soo saarta ee dalagyada beerta dhibaatooyin bay waxay ku qabaan hay-adahan samafalka ka shaqeeya mar kastoo ay wax beeraan oo ay dalag beeraan oo dalagii uu soo go-o baa la keenaa mucaawino oo digiir galeey marka waxaa qiimo dhac ama hoos u dhacaya wax soo saarkii dadka ay beerteen taasna niyajab bay ku noqotay dadkii beeralayda ahaa bal arrimahaasi xoogaal mutiin waa dhab arrinkaas inuu jira laakiin
wax kasta markay dhacaan xal ayaa la raadiyaa sidii looga bixi lahaa. dadka beeralayda ah dalkan runtii waa nagu filan yahay, beerihiisa keliya haddii sidii looga talagalay loo hagaajiya, hadday ahaan lahaayeen kuwa roobka ku baxay iyo kuwa webiyada ku baxay intaba waa nagu filan yahay khayraadka dalka ku jira. marka soomaalidana waxay ku tiirsan tahay waa dad beeraley ah. annagu dadka beeraleydaan rabnaa baarlamaanka markuu fasaxa gala waxyaabaha aan u aadayno statekaan kasoo jeedna inaan ayaga lasoo sheekaysana, caqabadaha haysta hadday u baahan yihiin abuur, qolooyinka mataqaanaa markii on xiliyada dalaga uu soo go-ayo keenaya mataqaanaa isheeg cunooyinka macaawinada ah oo xilli aan loo baahnayn mataqaanaa la maqan, waxaa arrinkaas oo dhan kalifaya. annaga waxaan rabnaa dadkeena beeraleyda inaan dhiiragelino, waxaan rabnaa macluumaad inaan kasoo aruurino, hadday u baahan yihiin mataqaanaa isheeg abuurka oo kale, hadday u baahan yihiin mataqaanaa kanaalada duuga noqday, waxa ay u baahan yihiin oo beerahaas looga baahan yahay. waxaa jira daawo mataqaanaa isheeg lagu sameeyo dalaga siduu ku bixi lahaa bacrimin. marka waxaasoo dhan annagoo macluumaad faahfaahsan ka hayna ayaa waxaan kasoo laaban doonaa wasaaradda. marka annaga iyo ka guddi ahaan guddigeena quseeya arrinkaa iyo wasaaraddaas ayaa ka wada fadhiisan doona annagoo macluumaad ka sidna dadka beeraleyda ah, kadib aan wixii un laga qaban karo tilaabo ah ayaan ka wada qabanayna insha allahu tacaala. isla su-aal kale oo aan xagga beeraha ka fogeyn, dabcan beeraleyda dabcan waxay aada ugu nool yihiin oo ay wax ka beertaan waa xagga webiyada. dabcan waa ognahay webiyadan si dowladda dhexe u burburtay, dabcan hagaajin ma lagu sameynano in cagaf la geliyo la hagaajiyo wasaqdii laga saaro ma dhicin, mar kastana biyaha webiga way guraan. waxyaabahaas qorshayaal ma jiraan ama aad dejiseen ama hadda arjeynaysaa inaad dadka u samaysaan? haddii webiga uu guro haddee nolol ma jirtaba. marka dhibaatada haddee ummadda soomaaliyeed oo dhan ayna ku wada dhacday hal maalinna lagama bixi karo. waxay u baahan tahay waqti iyo fursad oo qofkii uu ku shaqeeya inuu hela. marka annaga waxaan rabnaa hadday webi ahaan lahayd iyo kanaal duug noqday oo xirmay iyo beer iska duur noqotay iyo mataqaana waxyaaba badan oo dadka beeraleyda ay u baahan yihiin, waxa caqabadaha jira inaan intaan soo aruurino aan keeno sidii looga bixi lahaa annaga iyo wasaaradda go-aan aan ka wada gaarno. hawshaasna waxaa laga rabaa annaga macluumaada nagala rabaa iyo la xisaabtan wasiirkaasu wasiirka beeraha in mataqaanaa macluumaad dhamaystiran intaan u keeno war dadkii beeraleyda ahaa iyo webigii iyo dhibaatadan iyo aqabadaana jirta ayadoo qodobeysan intaan keeno, kadib tilaabo midaysan sidii waxaas looga bixi lahaa in aan ka wada shaqeyno ayaan ka shaqeynayna insha allahu tacaala. gabagabadii aan joognaa barnaamijkeena Martisharaf, waxaan rabnaa su-aasha ugu dambeyso inaan ku weydiino wax message ama fariin aad u dirayso dadkeena daawanaya Soomaaliyeed miyaa jirta? dadka Soomaaliyeed 30 sano ku dhow ayay waxay ahaayeen dowlad la-aanna lama noolaan kara. abaaraha iyo colaada iyo dhibaatada maanta nagu dhacday sabab waxaa u ah dowlad la-aanta. dalka haddii uusan dowlad ka jirin nolol ma jirta. shacabka in badan oo kamid a waxaan isleeyahay saan horey kugu sheegay dowladdii ay dalbanayeen maantay timid, laakiin dowladdu waxay u baahan tahay in lala shaqeeyo. haddii uusan shacabka la shaqeynin dowladda meel ma tegeysa. sida marka abaarahan iyo dhibaatada iyo colaadaha jira looga bixi lahaa, shacabka waxaan leeyahay dowladdiina la shaqeeya, ku kalsoonaada, gacmaha la isqabsada. tan kale dalkii wuxuu noqday federal stadio, runtii arrin fiican waay stateku sidii mataqaanaa isheeg wadada saxda ah hadduu u shaqeeyo. annagu bilow fiican aan joognaa, cid kasta statekay kasoo jeeda inay dhisto horumariso, ayadana waa wax aad iyo aad u fiican oo dowladda dhexe iyo stadyadana si isfaham ay u wada shaqeeyaan. marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa hal iscafiyo, ilaahayna loo toobad keeno. 30 sano in ka badan isdilaynay, qof islaam ah oo la gowracayo ayado quraan lagu dul akhrinayo waxaan isleeyahay waxaan gacmaheena kula imaanay waa ilaahay inaan u toobad keenaa wax aad iyo aad u wanaagsan, dhibaatada ilaahay inuu naga qaado. culays markuu imaadana hadee ilaahay yaa la baryaa, ilaahay baa loo toobad keenaa. marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay aan u laabano, ilaahay aan u toobad keeno, dowladdeena aan ku kalsoonaano, aan la shaqeyna. isteedyadana waxaan leeyahay dowladda dhexe ayaga inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. annagana waxaan ka shaqeyn doonaa isfaham guud iyo wada shaqeyn inay ka dhacday khilaaf iyo isqa qabsi iyo mushkilad waa ka soo daalnay. marka gacmo wada jiray wax ku gooyaan. sidaasaan waxaan ku gaari karnaa dowladnimo iyo dowladdii annaga aan u baahnayn. shacabka marka waxaan leeyahay dowladdiina ku kalsoonaada,
la shaqeeya iyada taasaan waxaan ku gaaraynaa wadada dowladnimada guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii marti sharaf oo aad kala socoteen tv-ga jubbaland barnaamijka toddobaadkan waxaa uu ka imaanayay xarunta labaad uu tv-gu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaa marti uu ahaa oo igala qaybgalayay oo aan aada uga mahadnaqayaa waqtigiisa qaaliga xildhibaan maxamed cali cumar oo ku magac dheer caananuug oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee federaalka soomaaliya sidoo kale xildhibaanku waa guddoomiyaha guddiga xanaanada xoolaha horumarinta reer miyiga iyo sidoo kale beeraha iyo kalluumaysiga khayraadka toddobaadkan barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Idruus Maxamuud Imaan dhanka kaamirada waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdulle farsamadu waa Xasan Maxamed Awees intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmayno waa anagoo isku duuban oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay Idruus aad u mahadsantihiin TV-ga Jubbaland si gaar ah ugu mahadcelinaya aad u mahadsantihiin